wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xilkii waxaa looga qaaday wasiirka qaabta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Imaan Cabdullaahi Cali xilka qaadista wasiirka maanta xilka laga qaaday ee qaabta arrimaha diinta ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in la xiriirto arrimo ku saabsan awood qaybsiga beelaha taasi oo dowladda Soomaaliya beelaha ugu qaybiso dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa digreeto ka soo baxday xafiiskiisa waxa lagu magacaabay Master Maxamed Mursal inuu noqdo wasiirka gaashaandhigga isagoo buuxin doona xilka uu iska casilay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo is casilay 12 bishii Oktoobar wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Yiriisow ayaa wuxuu aqrinayaa wareegtadii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre maanta waxa uu soo saaray digreeto oo uu xilkii uga qaaday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Dr. Imaan Cabdullaahi Cali waxaana sii haynaya wasiir dowlaha wasaaraddaasi Cabdixakiim Xasan Ashkir sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu maanta magacaabay wasiirka gaashaandhigga oo u magacaabay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo hore u ahaan jiray wasiir hore u ahaan jiray safiirka Turkiga ayaa wuxuu qabanayaa xilkii wasaaradda gaashaandhigga intaas ay ku saabsaneed warbixintii maanta iyo go'aankii uu ra'iisul wasaaruhu qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalmihii u dambeysay wuxuu waday la tashiyo oo la sameynayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu magacaabo xilka wasiirka gaashaandhigga oo muddo bil banaana sidoo kale safarkii ra'iisul wasaaruhu uu ku tagay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ayaa ina qayb waxay ka ahayd soo wararku ay sheegayaan magacaabista xilka wasiirka gaashaandhigga isagoo wada tashi la yeeshay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan Maxamed Mursal ayaa hore u soo noqday wasiirkii tamarta iyo biyaha xukuumaddii hore sidoo kale wuxuu soo noqday safiirkii u horeeyay ee Soomaaliya loo magacaabo tan iyo wixii ka dambeysay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya